نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا نتألق خيرا وسخاء نتوهج خلقا نبويا نتعاون من أجل حياة عامرة خيرا ورقيا السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله أكبر. أودنا إلهي كلمة وأسكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كينا ليبانتا جوكا قيبتا شنات. ما أنت هدو إلهي إدم وحن ديردان ساري دونا وحيتا هاي سيدي أيا دين إسلام كينا أمريسا إن قفك مكورة وقبر إنو صدونتو. شيخنا أبو طلحة سيدي أيا قفك وبندين كرا والدك قبر ديسا إن قبردان ورب إنو قوسد. الحمد لله وبعد. أرتا سؤاشاس waxaan jeclaan lahaa saaxiibkay Xambali oo baadiyaha in badan soo joogay in asaab ku hormarso. haye bismillaahir rahmaanir rahiim. aadaabta ugu wanaagsan iyo sida aan isleeyahay way ugu haboon tahay in gabadha ninka doonaya gabadha gayaankiisa ah waa inuu golaha soo fadhiistaa marka horena dee maadaama gabadhii si ay isu heleen in uu yimaado guriga isaga ama qaraabadiisa oo wada socda ama isaga keligii dabadeedna uu balorta inta aan hawl kala la bilaabin inuu ku yidhaahdo gabadhiina hebla ayuu damacigaga jiraa oo aan doonaynaa in aan mustaqbal guur ka wada hadalno kadibna aadaabtii iyo aadaabta kale ku xigta waxaa weeye dee in haddii iyagu markaasi inta badan qoysaska Soomaaliyeed waalidiinta Soomaaliyeed waxay yiraahdaan waa yahay dadkiinii soo dirso oo bal dadkiinii dehnoo yimaadeen marka la iswaraysto kadibna dee xigtadii xigaaladii baa timaada oo reerka u timaada gabadha hadda dee magaalo markii la yimid telefoonno iyo email iyo Facebook iyo hawlo kale ayaa jira anu kaama garanayo laakiin nidaamka ugu haboon waa inuu qofku sheego inuu gabadhani damacsan yahay وبالتالي إن ودتكيسي يا لبدي قيسي حديديسي أي إسوي مادان. سلام. بحما هو ده سؤال ها ماشي تلفونك بلاوية. هي. تلفونك حبوب سهلة. تلفونك وفض ضيّا. صح. وأجهر ولا سول وين شري أو مال سوس عجري. صح. هذا تلفونك هلو ونصاص عنا. رنتي صومالو رقم آد أقيمة بدن وآد أقرح بدن وآد أفي عن أي صومالي دولة هاي أو dadka gabadha guursanaya inay yimaadaan qoladii kalena ay ballansadaan labadii qolo la soo fariisto marka hore waxa la yiraahdaa wax doorasho la yiraahdo bay Soomaalidu leedahay gabadhii baanu idinka doonaynaa lacag baa la bixiyaa ma sha Allah qoladii loo imaanayina cunto fiican bay bixiyaan kadib maalinta doorasho la yiraahdaa gabadhii iyo waan gabadhii aday ku joogtaa gabadha aday ku joogtaa wali aroosi ma dhicin gabadha aday ku joogtaa kadibna maalinta dambe haddana la isu imaan doonaa marka dariiqo aad u qiimo badan bay leedahay oo haddii marka qaarkood waa la isku daraa doonashadii iyo meherka marka qaarkood waa la isku daraa iyadana waa waxay Soomaalidu sameeyeen marka dariiqo aad u wanaagsan oo hadee miyaa laga sheekayn karaa marka gabadha la bixinayo sida odayaashu u istaagayaan sida ay maxaa la yiraahdaa waa raa'ic jiddan صح ما شاء الله waxaan runtii aad iyo aad sicid u mudan dhaqan xumana anigu aan u arkaa inayna wanaagsanayna ay iska bacadahayba يعني نين دن أو رير كان مستقبل كله أو أنتوا جواد إسكا صار راعمة مثلاً جورج إسكا سوق جلي هو يدي أبي جواد دلائنا والد كهنا كم ورقبان با سبحان الله يالك حفظنا إسلامنا يكليهين واسدنا وكله مركا رير كأنتي نستحقلين أما إن هذا درستين وقرابتي ومسألة كله لكن إن وحال دون يا وقت البيوت من أبوابها إن سوى ناكسن أو قروح بدن يفرين وناكسن waalidiinta Soomaalidu gabadhooda in ay nin wanaagsan guursato waalid walba uu ku riyoodo uu ku taama waxa weyna ka mahmaahayna waxay yiraahdeen ninkii gabadhaada ku weydiisto kun fac buu ku amaanay
kunfac buu ka amaanay laanno gabadhu waa waxyaabaha ugu qaalisan ee qofka uu hantiyo weeye uu qofku maaragtay la soo weydiisto weeye gabadhaada marka nin gayaankeeda inuu soo doonto waa wax aad iyo aad runtii loogu farxo aad iyo aad marka nidaamka iyo aadaabtun hal la ilaaliyo insha Allah tabaaraka wa taala yaan la cabsanin dhalinyarada magaalada ku kortay hadda miyaan hooyo la hadli kara hadda miyaan aabba la hadli kara hadda miyaan qaraabo la hadli kara ayaan la dhihine waxa weeye waa in la soo bareeraa oo gabadhii waalidkood loo yimaadaa isla mar ahaantaas si fiican sheekhana waalidka gabadha laga doonanayo maxaad nasiixa siin lahayd wallahi nasiixa ma nasaaix badan buu u baahan yahay haye hadee sheekhaaba hadda ka maahmaaho yidhi ninka gabadhaada ku weydiisay kunfac buu ku ammaanay bini aadamka hadduu baabuur ku weydiisto oo lacag ku weydiisto oo waa wax iska adduunye ah laakiin bini aadam qofka ku weydiistay weeye masale sahlan ma aha waxaan kula dardaarmi lahaa isagoon dhinacna u fiirinin ninkan diintiisii akhlaaqdiisii asagoo wax ku qiimaynaya soomaali muslima oo haddanana diin iyo akhlaaq leh inuu soo dhoweeyo fadhigana oga kaco sidii inuu aabba u noqon doono wiil yar oo uusan asagu dhalin oo laakiin uu aabba u noqon doono sidii aabbihii laga yaaba weliba inuu carruurtiisa oga ficnaan doono mustaqbalka marka inuu aad u soo dhoweeyo aad u qadariyo oo wiilkiisii uu ka dhigto oo hoosta soo gashado waa runtii qodob aan maanta u baahannahay wey si fiican sheekhana waxaan ku dari lahaa inaanan bulshadeenna maanta waxyaabaha qarankeenni dumiyey ee runtii wax badan iyo qiyamkeenni dhaawacay waxaa ka mid a qabiilka in gabadhani ninkani nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasallam akhlaaqda iyo diinta laga fiiriyo idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ha loo guuriyo fankixuuhu riwaayad kale ha loo guuriyo weliba fa'du litacqiib markiiba weeye gabarh qaan gaadhay iyo wiil qaan gaadhay in la isku hagaajiyo oo la isu maaragtay mehriyo oo arrimahooda si wanaagsan looga fakaro wax ka qiimo badan ma leh marka inaan da'yarta la isugu diidin qabiil iyo kuma aqaano iyo wax noocaas oo kale aqoontu waa muhiim hadda ma lihin mactalan qof kastoo ku yimaado qof aadan aqoonin gabadhaadii isaga maaragtay tuur ma lihin laakiin waa in aana meeshu ay ka baxdaa waa faqiir waa qolo hebel qaara shahaado ku xujiyay inuu shahaadadaas wato waa inuu sidan ahaada inta uusan soo doonan ka hor كل هذا واحد سوق دجليا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير سومالي هذا ميلها أقول قيمها بدل حق جور كأنه كملنا بالشوين كله إسلام كان لا من سنة إسلام كان لا قارو حضرك إذا أنت سو ملايين إلا بحيم وجبدي على جور سنين قارو حضرك إذا مركو ويل نقول شو نحيو لأنه ويل شو على قطع qaar waxaad arkaysaa gabadhii la yiraahdo gabadhii markii laga soo doonto waa in adigu gurigeedii iyo wixigeedii waa in dhaqanka Soomaalidu waa dhaqan nadiif ah waa dhaqan diintii ku qotoma marka nusuusta aad fiiriso sharafta baa marka la doonayaa in qofka la maamuuso oo si gobonnimo leh golaha loo yimaado ayaa la doonayaa laakiin waxa laga yaabaa inuusan waxbo aabahay wuxuu oran jiray alwaalid xafidahullah wuxuu oran jiray gabadh aan ninkii weydiistaa anoo masaajidka u sii socdo wallahi nusa gabal ka dhacayn buu oran jiray waxaan iska hubsan ninkan diintiisa iyo akhlaaqdiisa aan iska hubsanaya marka inaan caruurta inaan daayirta la isugu diidin qabiil iyo shahaado iyo darajo kale iyo wax kale hadii kale fasaadkii uu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabinimadiisuna waa xaq uu ka digay ayaa imanaya waana in badan oo mujtamaceena kamid hadda waaban aragnaaba si fiican jazakallahu khayr jazaa halkan waxaan ku gabagabeynaynaa waxay tahay qaybta shanaad ee aan ugu hadlaynay doorashada allah idin xifdiyo